السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maalin dhawaato nin ganacsata oo mashaariic waaweyn adduunka kule ayaan dhegaysanayay. Wuxuu ku leeyahay afar aayadood oo qur-aanka ku jirta ayaan businesskayga oo dhan ku dhisan yahay oo aan aad u aaminsan yahay oon xoog ugu shaqeeya. wuxuu ku leeyahay ta ugu horeysa waxa weeyaan aayadda subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi suurat النجم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. waxa weeyaan mashruuc haddaad samaynaysid ama business aad wadid, dadaalkaad gelisid iyo tacabkaad gelisid iyo qiimahaad u samaysid iyo magacaad u samaysid ayuunbaad natiijada ku dhisantahay natiijadaad helaysid. haddaad tacab badan aad gelisid natiijad aad u wacan ku raali gelinaysa ood ku farxaysid baad helaysaa. haddaanad tacab badan aanad gelin oo aad dayalsatid mashruucaas oo aanad qiimo u samayn magac aanad u dhisin de natiijad aad ku farxaysid ma helaysid. talabaad waxa weeyaan aayadda yaqiinta iyo kalsoonida lagu kalsoon yahay ilaahay fadligiisa iyo wanaagiisa. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi bismi illaahi raxmaani raxiim وأن سعيه سوف يرى. yacni macnaha aayaddan waa maxay? ilaahay dadaalkaaga iyo tacabkaaga iyo habeenkaad soo jeedaysid aad doonaysid mashruucaas inuu guulaysto oo hadafkaaga inaad gaadhid ilaahay wuu arkaa, xagga saruu ka arkaa. tacabkaagana ilaahay ma luminayo, ilaahay waa caadil. haddaad tacabtid tacabkaaga natiijadiisa waad arkaysa, ilaahayna tacabkaaga ma luminayo. waynad yaqiin iyo kalsooni aad ku leedahay fadliga ilaahay iyo wanaagiisa iyo naxariistiisa. aayadda saddexaad waxa weeyaan waxay ku saabsantahay go-aan qaadashada. haddaad go-aan aad qaadanaysid ood mashruuc ama business aad leedahay waa inuu go-aankaagu noqdo go-aan adag oo aanad ka noqonin oo labaalabaac aanay ku jirin. taasna waxa weeyaan subxaana wa tacaala ilaahay aali cimraan wuxuu yidhi aayadda 159 wuxuu yidhi bismi illaahi raxmaani raxiim فإذا عزمت فتوكل على الله. haddaad go-aan qaadanaysid go-aankaaga qaado adigoo aana baqaynin oo aana ka noqonayn go-aankaas oo ilaahay ku tawakal oo ilaahay arrinkaaga u dhiibo. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ina allaha yuxibu lmutawakiliin. ilaahay wuu jecel yahay dadka isku xidha ee ku tawakala ee arrinka isaga u dhiibta. ta ugu dambaysa wuxuu ku leeyahay ninkaasu sanadkii markaan shaqeeyo aan ordo aan natiijad wacan aan gaadho aan helo waxaan doonayo waxaan xasuustaa aayadda bismi illaahi raxmaani raxiim waama binicmati rabbika faxadith. taasna waxa weeyaan nimcadda ilaahay ha lagugu arko. nimcadda ilaahayna maaha afka inaad ka tidhaahid alxamdulilah keligeed, ficil baa lagaaga baahan yahay. waa inaan markaa sadaqada bixiyo, waa inaan masaajid yar dhiso, waa inaan dad danyar aan caawiyo, waa inaan dad badan qacan qabtoo dhalinyaro ah, waa inaan nimcaddan ilaahay uu siiyey ay dadku ila wadaagaan oo ay la cunaan. waa mahadsantiin.